aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ilaahay halkan isugu keenay oo mahadda guud iska leh mahadda ka sakow waxaan u mahadcelinaynaa walaalkeen dhaga weyne oo xafladan aad iyo aad ka u qurux badan beesha kuumade in ay maanta ra'iisul wasaaraheena cusub ugu hambaliyayso noo suura geliyay inta ilaahay ka sokaysa waan u mahadcelinaynaa walaalkeen dhaga weyne inta kadib anigu hadalka badin maayo beesha kuumade waa ra'iisul wasaarihii koowaad ee ay hesho maanta ay isugu timaado halkan inay u hambaliyayso ninkii doqonana hambaliyada maanta iyo qaabkan xafladan sida quruxda badan loo agaagsimay ninkii doqonana loo sheegi maayo ninkii wax garanayaana uu garanayaa hambaliyada iyo farxadda maanta naga muuqata aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen rooble waa ra'iisul wasaare Soomaaliyeed waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu wax fiican oo ra'iisul wasaareyaashii hore la yiraahdo waa ra'iisul wasaarihii ugu fiicnaa inuu sameeyaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu Soomaalinimadu sidii lagu yaqiinay dadku ka soo jeedo ay sameyn jireen lagu yaqiinay taariikhda waxa inuu sameeyo baan ilaahay ka rajaynaynaa waxa leenahay ilaahay xil culus baa lagu dhibay ha kuwa asuro annagoo beesha kuumadaana maanta farxadda aanu faraxsanahay mid la hilmaami doono ma aha waa mid adduunka meel walba maaragtay aanu muuqaalkeeda ka bixinayno aan cidna kala gabaraynin soo dhawow ra'iisul wasaare soo dhawow ilaahayna ha kugu asro xilkaaga meesha waxaa fadhiya beesha kuumade odayaasheeda ama waxgaradkeeda fadhiya waxay u soo jeedinayaan hambalyo intaan horta hambalyada gelin hambalyada ninkaan u jeedinayno waxa weeye ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya maxamed xuseen rooble yaa waxaan u soo jeedinaynaa hambalyo qof bina aadan oo nool oo ifka ku nool tii loo jeedin lahaa ta ugu qiimo badan baan u soo jeedinaynaa waxaan ku darayaa intaas qof la magacaabo oo Soomaaliya ma magacaabo oo beesha kuumada maanta uga kalsoobay badan ama uga farxad badan ma jiro ninka anaga kuumada ahaan beesha anaga kuumada ahaan madaxweynaha Soomaaliya Jubbaland waxbay ka sheegan jirtay wax weyn abaal buu noo galay maanta kol hadduu magacaabay maxamed xuseen rooble hadduu magacaabay waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in aan ninkaasi aan ku faraxsanahay taageersanahay ilaahayna waxaan uga baryaynaa in xilka uu u dhib yareeyo isagana waxaan leenahay kumaduhu cadaalad baa lagu yaqaanay dadka lagu xamanayo ee ama aad u dhalatay ama aad xiriir ka baleedihiin ama u dhalaama ha u dhalin waxba qarin maayo dad badan oo ku ka tirsan beesha kuumade yaa ku tirsanayo Soomaalina way ku tirsanaysaa karaamadanada inaad ku dheelin oo Soomaaliya aad xaq u qaybiso oo laga soo bilaabo Sayid Maxamed iyo subaxan saakeen taaganahay ninka kuumade korku kursi ku fadhiisto marka leexan waxba iska igu waxayna aniga ninkaas soo saaro xabirayaan aqligayga ninka kuumade korku kursi ku fadhiisto Axmed Madoobahan hadda la kari laayahay qolo walbo Soomaaliya kolkay gobolkeeda qabsatay inteeda anaga nagama rooray tiri Soomaali wax u qaybiya Axmed Madoobe sidaas Axmed Madoobe wax u qaybina Soomaali ugu qaybiso oo karaamada dad ummadda aad ka dhalatay iyo taad u dhalatayba aad ilaaliso oo caalanka Soomaaliya aad ilaaliso annaguna waan nagu talagasho waan kugu talagalaynaa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Maxamed Cabdul Jaamac oo ku magac dheer dhaga weyne maantana sidan u agaasimay xafladana u qabtay beesha kuumade asagana si gaar ah ugu mahadcelinaynaa inta kadib waxa meeshan fadhiya waxgaradkii beesha kuumade ee joogay Jubbada Hoose degmada Kismaayo waxaanu si kal iyo laab ah oo kalsooni ah oo ehelnimo ah ugu hambalyeynaa mudane maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hambaliyo gamca furan baan kugu soo dhaweynaynaa waxa la hambaliyada waxaa noo dheer xaruhu baa leewadka hooyadood bay la wadaagaan mareegtaas u dheer
waxbaa noo dheer hambaliyada soomaaliyeed waxaa noo dheer ninkii raggu waa garanaya geelsida geela waana wada jirtaa waana kala jirtaa waxaa noo dheer wax qarsoon ma aha waxaanu ku leenahay mudane ra'iisul wasaare dadkaagii oo ku jecel ehelka soomaalinimo annagoo si walba annagoo u turjumayna gamca furan ku soo dhawoob hobyana ka warqab waxaanu ku leenahay hambaliyo haddaanu nahay beesha kuumade haddaanu siyaasi leenahay haddaanu dhaqan leenahay haddaanu aqoon-yahan leenahay waa kula shaqaynaynaa waxaanuna isleenahay wax badan oo aanu tabayna waad heli doontaan hambaliyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan soo dhawaynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen rooble yaan soo dhawaynaynaa soo dhawayntaas waxay xambaarsan tahay ujeedooyin badan waxaan ka turjumaynaa marka ugu horeysa beesha kuumade ama deegaanka jubbaland baan ka turjumaynaa annagoo odayaashii dhaqanka ah waxaa noogu helisay beesha kuumade ra-iisul wasaare aad iyo aad bay kuu soo dhaweynaysaa oo ay kuu ooman tahay soo dhawayntaada meel ay joogtaba intaa waxaa noogu helisay dowladda dhexe ee ra-iisul wasaaraha maanta lagu magacaabay lagu dhaariyey waxaanu ilaahay kaaga baryaynaa horta xilka lagu dhaariyey inuu ilaahay kuu fududeeyo marka koowaad marka labaadna waxaan ilaahay xaggiisa kaala dardaarmaynaa cadaalad inaad soomaali wax ugu qaybiso annaga kuumada haddaan nahay dowladda dhexe ee meesha mar walba laga sameeyo ee dowladdii soomaaliya cadaalad darrab badan bay nagu haysaa wayna xaqirtaa xafiiskaa maanta aad fadhiisatay inaad cadaalad ka helahay waan ku soo dhawaynaynaa rag iyo dumar dhalinyariyo waayeel aqoon-yahan dhammaan waan ku soo dhawaynaynaa waxaan kugu soo dhawaynaynaa soomaalinimo waxaan kugu soo dhawaynaynaa ehelnimo waxaan kugu soo dhawaynaynaa deegaannimo ra-iisul wasaare codsigaasna waa kuu soo diraynaa waxaan u mahadcelinayaa walaalkeen maxamed cabdul jaamac dhagaweyne oo ah ninka hoteelka haya madiina magaalada kismaayo oo xafladda suurtageliyey quruxda badan maanta inay sidan u dhacdo noo suurtageliyey aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad baan u salaamaynaa intaas ka bacdi xiisadda iyo farxadda ay leedahay barnaamijkan maanta iyo isomaatika beesha kuumade ay isugu imaadeen waxaa kow ka ah ra-iisul wasaaraha saacaddii la siiyey codka kalsoonida waxaan u malayn saacad ka bacdi ama wax yar ka bacdiba baa beesha ugu horreysay ee soomaalida beesha kuumade ee u hambalyaysay waana markii koobaad ee beesha kuumade si kal iyo laaba ay ra-iisul wasaare la magacaabay sidaasi ugu degdeg badan ay ugu hambalyayso waa markii koobaad baan filaya waxaan leeyahay barnaamijkaas waa mudnaantiisa buu leeyahay qiimayntiisuu leeyahay farxadda ayaga ku jirta ama magaalada kismaayo oo dhan jubbaland oo dhan markaad fiiriso gaar ahaan odayaasha beesha kuumade ee ka soo qayb galay shirkan ee casuumadda ah aad u ballaadhnaa waxay aad uga muuqda wejiyadooda oo aad looga dheehanaya ama ay qalbigooda ku jira farxadda aad iyo aad u qiimo badan ee maxamed xuseen rooble ay ku soo dhaweeyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaga oo filahaya xilkaa loo magacaabay inuu u gudan doono sida ugu qurux badan ee ugu habboon waxaa weeye waxaan filahayaa barnaamijka waxaa keenay baahi zaa'id ayaa waxaa loo qabay magacaabista ra-iisul wasaaraha saa ayaa waxaa keentay qada degdega in la qabto kulan degdega kuumada inuu qabto in jubbaland intii laga soo gaadho ama odayaasha ee magaalada durbeli isugu yimaado in la dhaho hambalyo kal iyo laaba aynu u diro aad iyo aad baan ugu soo jeedinaynaa anigoo ah xildhibaan maxamed colijoog waxaan si kal iyo laaba anoo ku hadlaya afka baarlamaanka jubbaland afka dhaqanka afka odayaasha afka kismaayo waxaan hambalyo kal iyo laaba sida hore loo soo jeediyey odayaasha ay soo jeediyeen ee dhaqanku soo jeediyeen waxgaradku soo jeediyeen hambalyo kal iyo laaba waxaan u soo jeedinaynaa guud ahaan ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya loo magacaabay xilkiisa allah ku asturo taageerid aan uga diraynaa ra-iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaare annagoo ah dhaqankii kuumade waxaan ku leenahay ra-iisul wasaarihii soomaaliya dhibta ka saaran noqo kaa allaha kaa dhigo waxaan ku leenahay ra-iisul wasaare waxaad noqotaa oy beesha kuumada ku leedahay
ra-iisul wasaarihii dadka dibindaabiyeysan ee soomaaliyeed ay ku nasan lahaayeen ee dowladnimo rasmiya gaadhsiin lahaa noqo. ra-iisul wasaare beesha kuumade dhaqankiisu waxay ku leeyihiin hambalyo iyo taageero dhan walba leh ku soo dhowow. annagoo ah dhaqanka kuumade waxaan soomaali leenahay. soomaaliyey in badan baad wax kala jiijiidad iyo qabiil ku dirir iyo hoosu fakeraad ku jirteen. taageera ra-iisul wasaarihiina annagaa idiin horobaxnay, annagaa idiin bilownay. waxaan rabnaa inaad ra-iisul wasaaraha taageertaan, kal iyo laabna aad ku taageertaan. hawsha kala guurka ee dowladda soomaaliyeed ay ku jirto sidii uu lagu gaari lahaana aad gacan furan ku siisaan. aad iyo aad baan u soo dhawaynaynaa ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaare dhaqanka kuumade iyo ka jubbaland iyo ka soomaaliyeed annagoo qoladii koowaad ee ku taageertay ah waxaan leenahay taageeradanada oo dhammaystiran ku soo dhowow. aad iyo aad baana kuu salaamaynaa oon salaam kuugu soo diraynaa. waad mahadsan tahay. horta kolka hore nimanka shirka qabanqaabiye ee kuumade ee dhagaweyne kow ka yahay baan u hambalyeynaynaa oo isu kaana keeno beesha kuumade isu keenay. waxaa kaloon u hambalyeynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee la doortay ee maanta la ansixiyey yaan u hambalyeynaynaa. nimankii hore aan waxba kaga tegin, laakiin ulajeeddadu waxaa weeye inaan u hambalyeyno walaalkano. nimankii horeaba sheegay inaan walaalnahay, walaalkana inaanu u hambalyeyno oo soomaali uu wanaaggeeda isu keeno oo soomaali uu ra-iisul wasaare u noqdo. intaasaan anugu ku hambalyeynayaa, waanan ku salaamaynaa annagoo kuumado oo dhan ah. ra-iisul wasaare waan ku salaamaynaa, waana mahadsantahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.